wiilkaygii wuu iga xanuunsaday hooyo faaraxow biyo ii cab faarax wuu qandhaysan yahay wuu qufacayaa sankaa da'aya indhaha ayaa gaduutay iftiinkana wuu dhibsanayaa 3 ilaa 4 maalmood kadib faarax wuu iska caafimaaday kubad ayuu cayrsanayaa xanuunkii maalintii hore ayuunbaa haddana dib ugu soo laba kacleeyay jirkoo dhan baa xanuunay qandhana way qabatay faarax hooyadii baa u soo gashay oo ku tiri hooyo xagee baa lagaaga soo booday xanuunkii maalintii hore qabtay oo aan jirkiisa ka bixin yaa dib ugu soo noqday jirkoo dhanna waxaa ka soo baxay birdhimo faarax waxa haya waa jadeeco jadeecadu waxay ka timaadaa virus waxaana la iska qaadsiiyaa hawada iyo candhuufta jadeecadu waa cudur si aad u fudud la isu qaadsiiyo wuxuuna inta badan ku dhacaa carruurta daawo ma laha waxaa kali ah oo la samayn karaa in ilmaha laga ilaaliyo carruuraha kale ugu yaraan 1 week si aan la isu qaadsiinin midda kalena sharaabka lagula dadaalo ilmaha si uuna jirku u angagin carruurta qaarkood waxay u baahdaan in dhakhtar la dhigo oo faleembo lagu rakibo jadeecada waxaa jirta tallaal amase vaccine carruurta la siiyo oo ka hortag ah Soomaali badan waxaa ka dhaadhacsan ina tallaalkaasi dhibaato ilmaha u keeni karo laakiin aaminkaasi sax ma aha ilmaha cudurka jadeecadu wuxuu u keeni karaa indho la'aan infection maskaxda iyo geeri siiba haddii ilmuhu difaaciisu markiisii horeba daciif yahay ama nacfigu ku yar yahay carruurta qaarkoodna wax weyn ma yeelo